Abdullah Hamdok, Prime Minister of Sudan, Your Excellencies, Head of States and Governments. mudane cabdalle xamduug ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan ahna gudoomiyaha IGAD madaxda dalalka mudanayaal iyo marwooyin waxaan si diiran u soo dhaweynayaa shirkan madaxda IGAD ee waqtigii loo baahnaa ku soo aaday kuna saabsan caabuqa corona ee safmarka ah waxaan u mahad celinayaa walaalkay mudane cabdalle xamduug ra'iisul wasaaraha Suudaan oo sidoo kale ah gudoomiyaha golaha madaxda dalalka iyo dawladaha IGAD iyo mudane Dr. Gabayaho xogayaheena guud iyo Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya maadaama ay dhamaanteen isugu kaanya keeneen shir madaxeedkan muhiimka ah waxaan sidoo kale bogaadinayaa dadaalka madaxda dalalka IGAD ay waqtiga adag wax kaga qabanayaan caabuqa halista ah ee coronavirus taasi oo uu shirkani cadeyn buuxda u yahay Soomaaliyana sida dal kasta oo caalamka kamid ah waxa ay xoogga saartay fahamka ka hortagga iyo ka falcelinta caqabadan halista caafimaad ah ee adduunku wali u nugul yahay sida hore loo xusay marka laga tixraaco warbixinada caalamiga ah tirada kiisaska waxa ay kor u dhaafeen 600 oo kun iyadoo tirada dhimashaduna ka badan tahay 20,000 ka sokow dhammaan dadaalada caalamiga ah tiradan qalbi jabka ahi wali way sii kordhaysaa dhab ahaantii tiradani waa mid murugo leh oo ku soo aaday xilli caalamka oo dhani mugdi hareeyay ka falcelinta caalamiga ah ee coronavirus waa mid bogaadin mudan balse muujinaysa sida caalamku aan ugu diyaarsanayn cudur noocani oo kale ah dadaalka loo dhan yahay ee caalamiga ah oo ay qayb ka yihiin wacyigelinta dadweynaha kala fogeynta bulshada xiridda goobaha dadweynaha hay'adaha iyo ganacsiyada xadididda dhaqdhaqaaqa dadka iyo karantiilka dadka caabuqan qaba waxa ay sidoo kale calaamad u tahay aqoonta kooban ee aan caabuqan u leenahay sidaasi si la mid ah waxaa maanta loogu baahi badan yahay iskaashi wada shaqayn iyo in la qaado tallaabooyin wada jira oo lagu sugayo badqabka mid kasta oo ka mid ah muwaadiniinteena. In Somalia, we have 3 reported cases of coronavirus so far, and we have since taken all necessary measures. Soomaaliya waxa ilaa iyo hadda la hayaa 3 kiis oo caabuqa coronavirus ah waxaana qaadnay dhammaanba tallaabooyinka muhiimka ah iyo kuwa siyaasadeed ee lagula tacaalayo laguna yareynayo saameyntiisa walow kooxaha iyo quburada wasaaradda caafimaadka ee heer federaal iyo kuwa dawlad goboleedyadu ay hawl fiican hayaan haddana wali Soomaaliya waxa ay u nugushahay xaaladda caafimaad oo degdeg ah oo baaxad leh maxaa yeelay waxa wali curdun ah hanaanka caafimaad ee dalka oo hadda dhismaya aniga oo arintaasi garowsan isla markaana tixgelinaya xaddiga halista ah ee caabuqani caalamka iyo gobolkeena ugu faafayo waxaan soo dhaweynayaa yagleelidda istiraatiijiyadda heer gobol oo IGAD leedahay taasi oo lagula tacaalayo halistan caafimaad ee safmarka ah waxaan sidoo kale dhiirigelinayaa in si degdeg ah loo abuuro hanaan ay quburada caafimaadka ee gobolkeena oo ay hogaaminayaan wasaaradaheena caafimaadka iyo hay'adaheena caafimaadka ee guud ay ku wada xiriiri karaan xog ku wadaagi karaan isla markaana laga hago dadaalada heer gobol dagaalkan aynu kula jirno caabuqa coronavirus tallaabooyinka aqoonta ku dhisan iyo faragelinta dhanka caafimaadka guud waxa ay furo u yihiin badbaadinta nolosha dadkeena walaalaha ah xaqiiqatan coronavirus ma yaqaano xuduud sidaasi awgeedna waxa ay u baahan tahay in aynu yagleelno gaashaan guud oo aynu isaga difaacno. The impact of coronavirus extends beyond a global medical emergency. It has caused panic, fear, and according to the International Monetary Fund, saameynta caabuqa coronavirus kuma koobna oo kaliya xaalad degdeg ah oo caafimaad waxa uu abuuray anfariir iyo cabsi sida ay qabto hay'adda lacagta adduunka waxa uu na sababay dhaqaale xumo caalami ah tani waa run qaraar oo ka jirta gobolkeena maadaama dhaqdhaqaaqyadii iyo xaddigii ganacsi ay hoos u dhaceen taasi oo ay ka dhalanayso shaqo la'aan iyo kalsooni darro ganacsi marka laga fiiriyo tallaabooyinka siyaasadeed ee la xiriira caafimaadka guud kuwaasi oo lagama maarmaan ah caalamka oo dhanna laga hirgeliyay gabi ahaanba ganacsiyada isugu jira hawada ka ganacsiga alaabada adeegyada xirfadleyda iyo dalxiisku waa ay dhiban yihiin taasina waxa ay saameyn halis la ku yeelatay ururinta dakhliga gudaha iyo dakhliga shakhsiyaadka khasaaraha dhaqaale waa mid halis leh gobol ahaan
walow dal walba qorsheeyay tallaabooyin maaliyadeed oo u gaar ah oo ku yareynayo dhibaatada waqtiga dhow, haddana ma lihiin sanduuq guud oo loogu talagalay yareynta halista dhaqaale ee uu sababi karo caabuqa waqtiga dhexe iyo kan fog. arrimaha maaliyadeed ee muhiimka ah marka la fiiriyo waxaa lagama maarmaan noqonaya ka faa'iideysiga qoondada heer gobol ee hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah, gaar ahaan Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika, maadaama ay kaabayaan qoondada dal walba uu ugu talagalay arrintan iyo mashaariicda hadda socda iyo kuwa mustaqbalka ee dhanka caafimaadka. sidaas awgeed waxaan soo jeedinayaa in wasiirada maaliyadda dalalka IGAD kulan gaar ah la yeeshaan bangiyada horumarinta iyo sidoo kale saaxiibada kale ee caalamiga ah si arrintan looga miro dhaliyo. In conclusion, the coronavirus is a challenge to us today in unprecedented ways. waxaan hadalkayga ku soo koobayaa xaqiiqada ah in maanta cudurka coronavirus siyaabo aan hore loo arag caqabad inoogu yahay, isla markaana uu daaha ka fayday itaal darideenna ku aadan u diyaarsanaanta duruufaha safmarka ah iyo khasaaraha dhaqaale ee ka dhasha. run ahaantii caabuqani waa mid dilaa ah. waxaynu u baahannahay inaynu itaalkeenna iyo iskaashigeenna isugu geyno sidii aynu u xaqiijin lahayn badqabka dadkeenna, dalalkeenna iyo gobolkeenna, innaga oo isla markaana yareynayna saameyntiisa halista ah ee caafimaad iyo dhaqaale. cudurka coronavirus waa inuu sabab u noqdaa inaynu baraarugno oo aan dhammaanteen si dhow u yeelanno iskaashi heer gobol oo taabanaya dhanka bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadda si aan u xaqiijinno amniga, horumarka iyo barwaaqada guud ee shacabkeenna walaalaha ah. mahadsanidin dhammaantiin. For our brotherly people, I thank you all.